waxaan rajeynayaa labadaa cisho ee aynu halka ku baranayseen aqoonsi wadaarsigan aan kaga hadlinay badda iyo isbedelka cimilada iyo saameynta ay ku yeelan karto waxyaalaha badda xayawaanka badda ku nool iyo dadkaba in aad uga faa'iidaysteen labadaa cisho waa runtii waxyaalo way nagu cusub tahay aniga waxda maariga runtii way nagu cusub tahay imika waa wax dhawaan la sameeyey waanay dadaalayaan bal imika inay horumar fiican aan iska sii gaadhno marka insha allah waxaan filayaa inaad fikir fiican ka qaadateen sida dhibaatooyinka badda ka dhaca iyo wax laga hortagayo iyo ka hortagooda iyo ka dabataggoodaba intaba in maanta aad ka faa'iidaysteen halkan insha allah adduunyada waxay ku fadhidaa waa koob kubad yar baynu wada saarnaa haddaad maanta kiligaraysaad weydiiso waxaa maanta lagu baray waad sii kordhisan karta waad ka helaysaa macluumaad intan ka badan ayaad ka helaysaa marka mid walba waxaa isku daydaa bal inaad idinku kolley waa inaga baahada ku foorarnee bal inaad yar kiligaraysaanu si yar wadaan waxaan halkan iyagoona ugu mahad celinaynaa hay-adda Save Children oo iyadu programkan inaga caawisay oo wasaaraddana wada shaqeyn fiican la leh training kan labada tababarkii aan ku soo qaadanay labada cisho maantuu nagu soo gabagabay marka dhamaanteen halkan ma shalay markaanu bilaabaynay waynagii isweydiinay in yaroo isweydiina waxaan qof walba weydiinay aan lahaa su'aalaha wax ma ka garanaysaa intiina badan waxa laga yaabaa inaad hore u arag wixii aynu shalay isweydiinay laakiin maanta qof aan ka haysan fikrad ma jiro ka hortagga masiibooyinka iyo actionska laga jawaabo iyo deegaanada badda taasi waxay ka dhigan tahay maalin kasta la soo yimaado wax kasta marka ay aqoon kororsi ay tahay waxbaad baranayseen marka aqoonsi wadaarsigaasi halkaas uu laga sii wadayaa waa tilmaam wixii dambe idinkaasi barbaari doona qof walba deegaanka badda waxbuu ka garanayaa dhibaatooyinka xalka iyo ka hortagga intiiba waa sheegi karaa maanta information badan oo naga siiyay badda iyo waxyaabaha baddeena Soomaaliland khataraha ku ah wax fiican baan ka faa'iidnay marka hore wax fikrada oo badan kamaanan haysan alxamdulillah imka laakiin wax badan ayaan ka garanayaa maareynki badduna waa muhiim waxay ka mid tahay ilaha dhaqaale ee wadankeena inaan aad u barano cilmi baadhis badan aan sameeynaana muhiim weeyaan aad baan ugu mahad celinaynaa labada agaasime iyo sujuwaha waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada oo noo qabatay tababarkan oo aanu aad uga faa'iiday annagoo waliba reer Berbera waxyaabahan ku baranay waxa kamid ah cimilada iyo isbedelka cimilada iyo xeebaha aqoon badan oo fara badan oo aanan aqoonin ayaanu ka baranay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa labada agaasimo waaxeed oo laba cisho oo seminaarkaas socday aqoon fiican na baray waana mahadsan yihiin